waxaan ku dhahay witirkii waaye wayna buuxdaa meesha banaanka kor ku tukada masjid way aflagaadeen waxay kaliya isku soo aadineen gabdhahaas dhor habeena arkay in saddexda witir la imaado masalaad saddexda witir dadka qaar guryahooda ku soo tukadaan waxa ugu muhiimsan waa 8 hore tamogtahay marka gabdhaha waxaan kula talinayaa in ay salaada sidaas ay ka bedelaan ay ixtiraamaan salaada ixtiraamay leedahay maxaa maadaama bartikoolka aad ka mid tahay sheekadii kuugu yaabadneed aad la kulantid dhinaca salaada gabdhaha marka masjidka la imaanayo maxay ahayd والله horta abaayo masjidka ilaahay qof walba awood gooniya ma sameeysan karo dadka qaar waxay ka dhigayaan in awood kaliya ku leedahay maadaama bartikoolka aad ku jirtid waxa arkaysaa dad xilli hore imaaday masjidka iyo dad gadaal ka imaaday dad normal ah soo daaha way fadhiyaan way sheekeynayaan dad taagan oo darjiinka oo mutuleelka wajigooda yaala oo dhibsanaya meesha fiican inta isku soo aadiyaan ay ku sheekeynayaan dadka qaarna ay salaada korkooda u taagan yihiin sheekada dadka salaada way ka waswaasisaa way sheekeynayaan marka tiraadada salaad u baahan maadaama sheekale ay ka tahay darjiinka banaanka kore tag salaada dadku u banay ha tukadaanay masjidka ilaahay iga xigtaa masjidka ilaahay iga xigta salaadayda dhibsanaysa anaga ay dhibs yani in dadka si qaldan ay ku fahmaan waxyaabahaasaan dhibsadaa aniga marka arko qofna salaada meel uu ku tukan la yahay dadna ay u sheekeynayaan waliba dadka qaar gabdhaha meesha joogan ay farta ku taagtaagaan macnaha way xamanayaan adoo maqlay sida wax ka sheegayaan masjidkee fadhiyaan sheekhu uu duceynaa marmarka qaarkood ducadii oo socota ayay fadhiyaan oo sheekeynayaan dadna meel ay ku tukan ay laayihiin qof si loo joogaba rag iyo dumar ha ahaadaan hal mar la iska waayo waa wada hadlayseen caadi oo wada socoteen waa wada sheekaysanayeen cilaaqo weyn idinka dhaxaysay wanaag iyo yani xumaan waxay aataba qof ashreer wada lahaydeen baahaydeen laakiin qofkii si loo joogo hal mar uu goosanayo meel uu ka bax ma garanaysid maxaas dhihi kartaa adigaan dadka laba siya dadkaas noqdaan qofna waa qof kaaniyad jabay qofkaas yani go-aan uu kaa qaatay dib uma arkaysid laakiin qof inta la waay soo noqonayo hadaa aragtid waa qof xiriirkii shalay iyo maxay ahayd maxabadii ama intii horeento uu kaaga soo dhawaanay ka laabtay oo raba inuu dib kaaga gurto marka hadaa aragtid qof intaa weysid imaanaya qofkaas oo kale lagu ma xisaabtamo wuxuu raba ha ahaado